barakacayaasha ku nool kaamka bilan oo kamid ah kaamamka ku yaala magaalada Beledweyne ayaa waxa ay sheegeen in saameyn ballaaran ay ku yeesheen roobabkii ka da'ay magaalada Beledweyne. Barakacayaashan ayaa ka soo hayaamay deegaano iyo degmooyin ku tirsan magaalada Beledweyne. Waa kuwan qaar ka mid ah barakacayaasha oo la hadlay dalka TV waxaana ay sheegeen in baahiyo kala duwan ay ku haysato kaamka bilan. inta haddaad arti 9 sano dhisan yahay wax hadda waxa waaye wax walba biibaxa soo martay wax hadda wax nala soo gaar hadda biibaxadii u dambeysay malaha hadda waxaan codsanaynaa inaan haddaad arti bacayaasha noola keeno oo haddaad arti wixii ilaahay aska soo qaado raashin noola keeno jidka waa noola furo jidka waa noo imaada karaan biibaxada inta biil dhimanaya biiba ma cabin wax noo keeno ma arkin marka hadda alxamdulillah shukri wixii nala soo gaartiina waa rabnaa halkaana iska joogni waa iska rafaasanahay oo dhibaato weynaa jirta dhibaato anaga sidii biibaxada noo gashay wax la helay waxna sii male baabuur meel noo soo mara male biyi waa na galeen rafaad waa iska jiraa ilmihii waa iska rafaasihiin ciidihii oo dhan meesha iska joognaa insha Allah taala wax noo keeni oo hadda waxna sii hal qolo oo wili waxooda ma soo gaarno wax noo qorqoray baa ka jirta raashin ma helin gogol ma helin waxan helni male waa iska joognaa ilaahay kuma darnaade ilaahay xaqiisa wax ka sugeynaa hayd sharafta wax ka sugeynaa waxaan idin codsanaynaa inaad waxna siisiina wax noola soo sidii ugu dhaqsada badan la noola soo oo wax noola keena baan rabnaa meesha maxaan ku dhahaa baahida ka jirto waa dareemi kartaa maxaan ku dhahaa hooylaan biyalaan musqulaan dadkii aad u tabaalaysan yihiin roobkii xalay habeen hore fatahaadii maxaan ku dhahaa roobka ahayd dadkii guriyihii ugu soo galeen waa dareemaysaa meesha ay joogaan inay maxaan ku dhahaa xataa bac haysanin maxaan ku dhahaa musqulihii ay dumeen dadkii daadadka guryaha ugu soo galeen meeshaasay fadhiyaan dad waayeelo tabaalaysan u badan yihiin waxaan ka codsanaynaa hay'adaha samafalka sida ugu dhaqsiyaha badan leh horta wax la cuno hooyga ka horeeyo waa in maxaan ku dhahaa hooy iyo bacyo iyo maxaan ku dhahaa cunno waxay cun lahaayeen in nagu soo gaaro waxa ay hadda samafal oo noo imaaday ama nagu wareysatay xataa ma jirta ugu dambeyn waxaa soo gabagabeeyay horjoogaha kaamka Cabdirasaaq Cabdullaahi oo ku magac dheer Ayatullaahi waxaana uu sheegay in dadka ku nool kaamkan ay dhibaatooyin badan ku haysato waxaana uu dawladda federaalka iyo maamulka gobolka Hiiraan hay'adaha ka howlgala magaalada Beledweyne ka codsaday in gargaar lala soo gaaro dadkan saameyn aan caadi ahayn ku yeeshan sababtoo ceelashii waa dumiyeen oo waad aragtaa musqulihii waa dunsan yihiin ilaa hadda waxaa kala guriyihii ayaga awalba cooshadii waxay ka samaysnaayeen bacyo wixii ayaga ahay oo dhan waad aragtaa adiga ilaa waxa hays ilaala ka dhanaa la yiraahdaa waa dunsan yihiin wax noo qabtay hay'adaha samafal oo noo yimid oo wax qabtay hay'adaha samafalka iyo dawladda maamulka dawladda Hirshabeelle oo ku nool waliba qaybta Hiiraan oo Beledweyne ayaan baaq waxaan u sheegaynaa hay'adahaas iyo maamulkaba in wax la soo gaaraan dadkaas ayada maatada annagan hadda hadlayno maatada geesaan ka jirnaa oo hadda iskama soo qaadayn laakiin dadka meesha ku nool waad aragtay dadka qaarkood adiga bishaada hayaan dhibaatooyin aan caadayna ka jiro oo meeshan dadkan waaba dad aanba wax midkaan loo qaban wali isma dhahayaanba dadkan ayada masaakiinta meeshii la raacayay wixii arad baxsanay raacaan marka gooni inay wax u qabtaan aad moodaa oo saf balaaran ama si cadaalad ah wax u qabanin hay'adaha 90% waxaan eedda si saarahay hay'adaha samafalka Abdi Waahid Maxamed Aadan wararka dalka News TV magaalada Beledweyne.